wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Biixi Yunis ayaa maanta kulan ballaaran kula yeeshay xarunta dhexe ee urur goboleedka IGAD ee ku taala dalka Jamhuuriyadda Djibouti xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Injineer Maxmuud Macalin iyadoo ay kulankaasi goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta kale ee urur goboleedka IGAD waxaa sidoo kale wasiirka kulankaasi ku wehelinayay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland safiirka Somaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana kulankaasi la iskula soo qaaday mashaariicda badan ee urur goboleedka IGAD ka fuliyaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland in shaqaalaha wadamada urur goboleedka IGAD ay ku soo gali karaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland baasaboorradooda Somaliland sawla socotaan waa wadan hor ah aaminsan in shaqooyin fara badan qabtay oo nabad leh oo governance leh oo waxyaabihii ay IGAD u taagneed oo dhan aan shuruudaheedii buuxinay sida awgeedna IGAD aan uga midnahay dad wadanada ay wax taraan waxaan doonayaa inaan ugu bushaareeyo secretary generalka dawladda Somaliland inay u ogoshahay inay shaqaalaha IGAD ku soo galaan baasaboorkooda IGAD oo ay sida wadanada kale ee shaarka ee IGAD-ka memberkooda ugu tagaan Somaliland ay ugu iman doonaan waxaan mar labaad u sheegayaa secretary generalka iyo shaqaalaha IGAD inaan aad idinla shaqayn doono shaqooyinka badan ee ka wadaan ama jidka Berbera ama iskuulka veterinary-ga ama mashaariicda faraha badan ee kala gedisanay ama nabad kula ama gender ama waxyaabaha badan ee noo qabanaysaan sida awgeed mar labaad waa mahadsantihiin waana la socotay Somaliland inta 22 sanadii ugu dambeeyay way madax banaanay iskeed bay u taagneed waxaan filaynaa insha Allah very soon in Somaliland noqon doonto wadan madax banaan oo IGAD membership full ka haysata wasiirka oo ka hadlayay kulankaasi waxa uu ka hadlay qadiyadda iyo i'tiraaf raadinta dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo waxa dalka Jamhuuriyadda Somaliland ka filayo urur goboleedka IGAD arrimaha goonisutaaga Somaliland waa arrin caalamka oo ogsoon yahay Somaliland 12 sano horteed ayay goostay inay goonisu taagto shacbiga Somaliland baana gaaray shacbiga iraadadiisa iyo shacbigu wuxuu jecel yahay inay idima joojin karto IGADna waan u sheegnay dawladda Djibouti waan u sheegnay dawladaha faraha badan ee Soomaaliya noqota ama Ingiriiska ama Masar ama Ethiopia wadanka aanu tagnaba aad iyo aad baan ugu sharaxnaa inaan si degdeg ah u rabno inaan walaaladayada Soomaaliya si walaaltinimo oo jaarnimo aan u kala baxno insha Allah si degdeg ah ayaan laba wadan oo walaalo jaar u noqon doonaa waana mahadsan